Assalaamu calaykum. Gabar xaas ah ayaa waxay dhahday waxay i weydiiyeen cidda nolosheeda gaashaanka ii ah. Markaas baa ninkayga milicsaday si sharaf iyo karaamo ku dheehan tahay. Waxaana idhi noloshayda waxaa garab iyo gaashaan ii ah ninkayga. Haddana waan fakeray, dabadeedna waxaan durbadiiba soo xasuustay mahmaahdii ahayd dad iyo duurba wax aadan ka filayn ayaa kaaga soo baxa. Iyo sidoo kale inuu isbedeli karo, ina i inkiri karo maalin uun. Markaas baan madaxayga hoos u dhigay. Haddana waxaan jeedaaliyey aabbahay macaane. Waxaana idhi aabbahay ayaa ah bogaagsigayga. Laakiin waxaan soo xasuustay adduunyadu inay geedi laga yahay. Asna uu maalin maalmaha ka mid ah safarkaas iga geli doono, ina cidlayn doono. Markaas ayaan goodaadshay luquntayda, ilin dhabankayga qulqulaysayna gacanta iska mariyey. Haddana waxaan jaleecay walaalahay. Waxaana idhi kuwaas ma aragtaa ayaa igu dheeta, mana dhiilinayo la jirkood. Laakiinse waxaan soo xasuustay nolosha iyo dhagarteeda, iyo inay hal maalin khalad aan sameeyo igu ufayn karaan ayagoo sharaftooda dhowraya. Markaas ayaan umal la goodaadshay madaxayga. Geesahayga ayaan jaleecay. Markaas baan inta gabar tay ah laabta gashtay idhi dhabtii adigaa dhiigayga, dheecaankayga iyo dhuuxaygaba ah. Waa hubaal inaad marka aan tabar beelo, waqtigu i turaantureeyo, aad dhabarka i ridan doonto. Haddana waxaan soo xasuustay mahmaahdii Soomaaliyeed ee ahayd cidaad dhashay kuma dhal. Waan ilmaynayaa, mana garanayo meesha i xanuunaysa. Dareen ayaa i guhaadinaya, laabtaydana gubaya. Balse waxaan indhahayga u taagay samada, gacmahaygana si niyad iyo kalsooni fara badani ku jirto ayaan kor u calaacala banaystay. Waxaana isku qabsaday indhaha, hadalkaygana waxaan ku bilaabay tiraabtan. Haa, adiga ayaa ii soo haray. Waa xaqiiq inaad tahay gaashaan iyo garab aan weligiis laga guulaysan, magantiisana dib la gaarsiin karin, la'aantiisna ay noloshu tahay waxba yahay. Waxaa tahay awood badane, falsamo wanaagsan, cilmi badan oo dulqaad badan, sidoo kale dembiyada dhaafi og, naxariistiisu ay ka xoog badan tahay caridiisa. Haa, waa adiga yaa Rabbi. Ma lihi cid kale oo aan adiga ahayn. Arrintayda waxaan u wakiishay falsamida maamulkaaga, waayo waxba kama xumaadaan adiga yaa Rabbi. Waxaan rajaynayaa daawade inay sheekadani noqon doonto mid noloshaada irid u furta. Haddii ay murugo ama umal u laabtaada buuxsamo, ama ay adduunyadu ku xumayso, ama xaaladdu maalin maalmaha ka mid ah ay kugu adkaato, aadna weyda cid garabkaaga taagan oo xal kula raadisa, ogow waxaa jira mid aan weligiis kaa quusanayn, noloshaada aas-aasay, isagana ay u laaban doonto. Haddii aad aamintid oo talada iyo arrimahaagana gacantiisa gelisid, ugana dambaysad wax walba, waa hubaal inaadan noloshaada ku khasaarin, horumar la taaban karana aad ka gaarig. Waa haddii aad qalbiyan iyo nafsiyanba u dareento jiritaankiisa, una qirtid inuu yahay awood badani, falsamo wanaagsan. Cidda aan ka hadlayo waa Allah subxaanahu wa tacaala. Intaas ayaan ku dhaafayaa. Waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iideen sheekadan insha Allah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu.